caadilnimo ku dhaqaaya ayaan rabaa ninkii aan ka waayana qorogayga caddaay weli xabadda kama baxsana botulinum toxin waa sun khatar ah oo lagu dilay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allah u naxariistay marxuum Cali Mahdi Mohamed kaas oo ku geeriyooday isbitaal ku yaal magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya dilkiisana waxaa la qorsheynayay muddo ayadoona loo xilsaaray xubno muhiim ah oo ka tirsan dawladda waqtigeeda uu dhamaaday haddaba xog iyo macluumaad ku aadan qaabka loo agaasimay dilka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allah u naxariistay marxuum Cali Mahdi Mohamed iyo sidoo kale marwadiisa oo hadda ku jirta xaalad koma ah ayaan ku faahfaahin doonaa muuqaalkan si degan muuqaalka u daawo kulanti wacan oo wanaagsan aqyaarta hawada aan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxa idin leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la gareeyo cid walba muuqaalka la gareeyo waxaan Allah subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeena umuuraha leedahay ilaahay inuu saala ilaahay subhanahu wa ta'ala awlaada uu barkeeyo inta awlaadoonkaana ilaahay awlaad baari ha siiyo inta guurdoonkaana guur wanaagsan ee mustaqbal wanaagsan ay baweyna ha siiyo qof walba muuqaalka sheerta ku qabtaa la gareeyana waxaan rabbi subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeena mal adduunyo ay sifileen inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyo dambigood ee dambiga waalidkoodana ee bawda rabbi subhanahu wa ta'ala uu ku cazuma jannatul firdaws ala xaasidka waxa leenahay wa min sharri xaasidin idha xasad al xaasid la yaflah bi idnillahi al karim wa aku dambeereeyo hoogi qasaaro rabbi subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryeynaa in hogaamiye daacada ee baweyna uu siiyo ummadda Soomaaliyeed Allah u naxariistay waxa xalay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ku geeriyooday madaxweynihii hore ee Soomaaliya marxuum Cali Mahdi Mohamed kaas oo ka tirsanaa lafdhabarka siyaasadeed ee Soomaaliya marxuum Cali Mahdi Mohamed mudooyinkii dambe waxay saayeen madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo saaxiibkiis Fahad Yaasiin wuxuuna Muqdisho kaga qayb galay shirar waaweyn oo ay soo agaasimeen beelweynta hawiye taas oo ay ku doonayaan xuquuqda ay leeyihiin isla markaana lagu doonayo in lagu adkeeyo dimuqraadiyadda ayna dhacdo doorasho xur iyo xalaal ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Mohamed oo geedi socodka nabadda Soomaaliya door weyn ka ciyaaray aakhirkii waxa loo agaasimay weerar qorsheysan oo la doonayo in lagu dilo miisaal ahaan shirka dhacay Mowlaca Macalin Nuur oo ay ka qayb galeen beelaha kala duwan ee ka soo jeeda beesha hawiye gaar ahaan beesha Mudullood ayaa waxa la doonayay in marxuum Cali Mahdi Mohamed iyo xubno kale uu ka mid yahay Senator Muuse Suudi Yalaxow iyo xubno muhiim ah in lagu qaarijiyo ayadoo isla markaasina loo agaasimay weerar ismiidaamina in kastoo weerarkaasi la fashiliyay laakiin taliyaha hay'adda nisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir kulanajiis iyo sidoo kale wasiiru dawlaha gaadiidka Cabdiraxmaan Dheere ayaa bedelay qorshihii la doonayay in lagu qaarijiyo marxuum Cali Mahdi Mohamed markii lagu waayay jaanis ah in weerar ismiidaaminaha ama dil qorsheysan lagu fuliyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Mohamed saraakiisha sarsare ee al-shabaab ayaa ka gaabsaday inay ka qayb qaataan weerarka la doonayay in lagu dilo madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayagoo dhankooda ka baqdin qaba in arrintaasi ay ka dhalato kacdoon dadweyne maadaama taageero badan uu lahaa marxuum Cali Mahdi Mohamed Cabdishakuur Cali Mire iyo kulanajiis oo qaraabe ay yihiin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u keenay qorshe khatar ah taliyaha hay'adda nisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir taas oo loo arkay in lagu qaarinji karo marxuum Cali Mahdi Mohamed waxaana arrintaasi la sheegay inay isla qaateen shakhsiyaadkan laguna wargeliyay madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday xoogana ku jooga filla Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo caqabada ugu weyn u arkayay inuu yahay Cali Mahdi Mohamed waxaana shakhsiyaadkan ay iska dhaadhacsiiyeen haddii laga taquuso Cali Mahdi Mohamed in laga adkaan karo madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud kuwaas oo qaraabo dawla Cali Mahdi Mohamed beesha hawiyana maskax ahaan la qabsan karo waa sida ay soo jeediyeen la taliyaasha xagga ammaanka ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aragti aana Farmaajo arintaasi ayuu qabay waxaana si weyn arintan ugu dhiirigeliyay taliyaha hay'adda nisa ahna wakiilka qatar Soomaaliya u jooga Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waxaana durbadiiba Cabdishakuur Cali Mire kulanajiis Cabdiraxmaan Dheere Fahad Yaasiin iyo shakhsiyaadka kale ay agaasimeen qorshe ah in Fahad loo diro Cali Mahdi shakhsiyaad ehel ay yihiin gaar ahaan kuwa uu aaminsan yahay isla markaana loo dhiibo sunta aan soo sheegno oo mid khatar ah laguna talagalay xayawaanaadka taas oo muddo in ka yar 20 cisho gudahooda qofka haddii la siiyo uu dhimanayo isla markaana neefta ku celinayso qofka qandho badan iyo waliba xanuuno kalena uu dareemayo waana sunta loo adeegsaday dilka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Mohamed waxaana suntaasi la sheegay inay tahay sun khatar ah adduunka markii la eego isla markaana lagu dilay hogaamiyaal badan oo dalalka waaweyn ay adeegsadeen sida
ila xoogaana ay xaqiijinayaan cali mahdi maxamed ayaa suntaasi ugu dambeyn la siiyey waxaana loo dhiibay xubno dowladda ka tirsan oo ehel ahaan ama heeb ahaan ay isxigaan cali mahdi maxamed waxaase sidoo kale nashqada iyo qorshaha la dejiyey la doonaya in lagu dilo madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi maxamed isku soo hadal qaaday in haddii cali mahdi la sumeeyo xaaskiisa wax walba uu la kaashado isla markaana ay muhiim tahay in marwada u dhaxday madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi maxamed ayadana suntaasi la qaadsiiyey waxaana aakhirka labadoodaba lagu guulaystay in la sumeeyo waxaana dawlad la geeyey isbitaal ku yaal magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya wax ka yar 5 cisho isbitaalkaasi ay ku jireen waxaa geeriyooday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allah u naxariistay jannadii firdawsana ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka waraabiya cali mahdi maxamed ayadoona wali marwadiisa ay ku jirto xaalad kooma oo qatar ah isla markaana oksijiinka uu ku xiran yahay professor Yaxya Shaq Aamir oo kamid ah ehelada marxuum cali mahdi maxamed wuxuu sheegay inuusan corona u dhimanin cali mahdi in kasto qaar kamid ah ehelka cali mahdi durbadiiba ay bilaabeen inay ka hadlaan warbaahinta kadib markii ay la soo hadleen Fahad Yaasin iyo Farmaajo si bulshada loo marxabaabiyo isla markaana laga dhigo cudurka uu geeriyooday cali mahdi inuu ahaa cudurka coronavirus laakiin waxaa cad oo la hayaa dukumentiyo ku aadan qaabka loo agaasimay dilka madaxweynihii hore ee Soomaaliya cali mahdi maxamed taas oo ay agaasimeen taliyaha hay'adda NISA Fahad Yaasin ku xigeenkiisa kulanajiis oo loo yaqaan jiis Maryaxan Kibri Cabdishakuur Cali Mare iyo waliba shakhsiyaad kale la soco qaybtii laba xogtan iyo macluumaadka ku aadan qaabka loo dilay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allah u naxariistay marxuum cali mahdi maxamed